kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada Mawlid Sam runtii waxa channelkayga marti ku ah Mahad Ibrahim Mahad Ibrahim runtii waxaan u aqaanaa shaaruqanka Soomaaliyeed misantaa may mahadka Soomaaliyeed isku hamsan oo ku soo dhawaanaya saaxiib channelkayga aad baan u mahadsantahay saaxiib waan ku dhawahay channelkaaga aad baan ugu faraxsanahay markii koowaad aan channelka soo muuqdo oo noqdo channelkaaga uu noqdo insha Allah waxaan u rajeynayaa interview qurux badan iyo waxaan ku leeyahay insha Allah daawasho wanaagsan magacaygu saddexan waa Mahad Ibrahim Yusuf waxaan ku dhashay tuuleero degmada Daroor hoos tagta oo magaceeda Bisad la yiraahdo Daroorna waxay ka tirsan tahay gobolka Dhagaxbuur ee dowladda Soomaalida marka halkaas baan u yaraanteedii ku dhashay halkaas baan ku soo barbaaray ilaa 8 jidkii halkaas aan ku soo gaaray markaan 8 jid hada markaa ka soo wareegay waxaan imid magaalada Hargeysa noloshayda intii kale waxaan ku soo qaatay magaalada Hargeysa aan ku soo qaatay dugsigii hoose dugsigii sare dugsi dhexe heerkii malcamada yani nolosha intii waxbarashadii asaasiga ahayd hoose Hargeysa aan ku qaatay jaamacadana waxaan ka soo dhigtay dalka Suudaan 2014 Suudaan tagay waxaan ka soo noqday 2021 bilowgiisii marka halkaas baan jaamacadana wax ku soo bartay والله موليدو هرتو marka hore qaabka wax loo jilo waxa weeyaan bilow bay leedahay dadka qaar markay bilaabayaan ugu horeynta markay bilaabayso waxa dareemaysaa in waxyaabo fara badan ka qaldan yihiin haddana marka dambe aad sheekooyinkii sameysay aad si dhex gasho waxaad arkaysaa marba waxba ku baxaya marka anigu markii ugu horeysay daanan jilinka soo bilaabin ka hor waxaan bilaabay qoraalka scriptiga ama waxa loo yaqaan sheekada filmka aan markii hore qori jiray kadib haddana waan ka sii yara horumariyay markii dambe jilinkan soo galay haddana directingkan soo galay marka waxaan ku soo bilaabay dad badan aan filayay daawadeen ama ay la socdaan sheeko markii hore qoraal ahaan jirtay oo aniga Nasrin lagu saabsanaan jirtay markii hore qoraalka ku bilaabay marka sheekadaas markii hore qoraal bay ahayd markii dambe haddana waxa weyn sameeyeen si horumariyo anigu qudin markaan Suudaan joogay aan galay maxadiyo meel lagu barto actingka iyo directingka marka taas waxay kugu markaad wixii baratay qawaacideedii asaasiyaadkeedii aad barato waxa weeye sida caadiga caalamka filmaanta loo sameeyo kala ku dhaweynaysaa ama ugu yaraan u sameynaysaa sidoo kale laakiin adigu wixii fikrad ka haysan markiiba aad bilowday inaad filmaantiso waxa weeyaan waxa ka muuqanaysa marka hore dhan inaad qof bilow tahay inaad wixii fahansanay marka inaan wixii ma garanaysaa aan u ekeysiyay filmaanta caalamka oo kale waxa keentay inaan markii hore soo bartay oo ma garanaysaa training soo qaatay aan xaq hoose ka soo bilaabay aan markii hore dadka u soo gudbin aan hoosteeda gudahayga ku soo waday markii dambe aan wixii fahmayna aan dadka ma garanaysaa level wix caalamka u yiri dhaw kale aan keenay markii dambe marka taas baan oran karaa waxa weeye taas bay ayaa suurta gelisay arrinka waxa weeyaan horta su'aalaad xasaasiyad weydiisay Nasrin marka sheekadeedu waxay socotay ugu yaraan muddo 7 sano waxaan jeedaa muddo afwan 2017 soo bilaamatay ilaa haddana way socotaa oo continuous marka dad qof wax weys weydiinay dadka qaar baa isla sheekadani goormay dhamaanaysaa dadka qaar baa isla halkii ka soo bilaamatay qaar imika 2021 maqlay ayun baa isla bartan ka bilaamatay oo haddana arkay iyadoo 2017 laga sheekeyn jiray deetana sheekadu horta marka hore ilaa hadda qof tilmaami karo Nasrin waa toos oo tilmaami kara ma jirto marka Nasrin inaan cadeeyo raad maanta Nasrin waa qofka ama aan sheegay inay tahay qof jirta ama qof khayaal la hal abuuray waxaan ku cadeyn karnaa insha Allah markii sheekadeedu dhamaato filmaanteedu dhamaato ay insha Allah sheegi doona waa tuma Nasrin ta dhabti mawlidu anigu wali ma soo bandhigay sheeko aanan qorin horta qoraalka waxaan bilaabay 2015 wax kasto aan sameynayo ama film ka sameeyo ama ha noqdo muuqaal yar oo kale sidiisa u duubanayo ama ha noqdo sheeko caadi oo aan qoray wax kasto aan anigu barnaamijka soo gelin ama aan dadka la wadaagayo waxaan qoraal baan sameeyaa ama script wax loo yaqaan sameeyo yani ma sameeyo film bila script la'aantuna waa dhibaatooyinka ugu waaweyn maanta dhalinyarteena filmaanta sameeysa haysata waxa laga yaabaa qofku intuu kamarad qaato iyo qalab qaato inuu la sheekan soo duubay ama film soo duubay isagoo wixii haynba u qorneen laakiin wixii markuu ku qoran yahay ku qorsheysan yahay ma garanaysaa shot kasta saad u duubayso iyo hadalkii la oranayay iyo wax walba uu ku qoran yahay aad bay kugu fududaanaysaa inaad wixii qurux badan u samayso laakiin adigoo kala daadsan oo maskaxdii wixii fikradda maskaxda ku hayo haddaad kamarad qaadato doonto inaad wixii soo duubto waxa soo duubaysa wax kala daadsan oo ma garanaysaa aan xiiso badan lahayn marka anigu wax walba aan sameeyay wax ii qoran baan sameeyaa ma sameeyo waxaan ii qorneen jacaylku waxa weeyaan qof wax buu yahay jacaylka qof wax kugu macnaynaya xanuun qof wax kugu macnaynaya macaan qof qaraar kugu macnaynaya yani anu waxaan aaminsanahay jacaylku inaanu lahayn taariif ama qeexitaan gooniyo la qeexi karo laakiin jacayl waxa weeyaan waa qof iyo xaaladdu ku soo maray bas
maanta qof uu jacaylkiisu u baraaray oo nolosha jacayl qurux badan ku nool jacaylkiisii helayo si qurux badan oo hadda weydiiso jacaylku waa maxay wuxuu kaaga sheekeynaya baraaray iyo nolol qurux badan kaaga sheekeynaya qof jacaylka dhibaato fara badan ka soo marayo hawlo badan soo marayo soo jabay hadda weydiiso tira jacaylku waa maxayna jaanib kale iyo zaawid kale ka tusaya marka aan waxaan oran karaa jacaylku qof kastaba qeexitaan gaar u leeyahay mar waa xanuun mar waa qaran ama waxaan ku soo koobi karnaa in haastii Saalax Qaasim lahaa marna waa qaran marna waa والله فرق aad weyn baa u dhaxeeya imika waqtigeena la joogo jacaylku macna badan ma sii yeelanayo hatta waxaad arkaysaa sheekooyin jacayl qofka waxa laga yaabaa imika waqtigeena joogo inaad qof la kulanto uu qofkaasi ku raahdo sheeko jacayl aad u xanuun badan baan soo maray dadana uu kaaga sheekeeyo dadana sheekadii ay noqoto hebel Facebook iska baranay wuu bloogay wuu soo jawaabi waayay message-yadu furi waayay yani jacaylka imika noocaas u noqday moogti laakiin de bariga hore jacayladu waxay ahaayeen mararka qaar 1 year ama hal sano inaad qofka jeceshahay aad raadisaa laga yaabo mararka qaar oo ma garanaysaa de bariga hore jacaylada waxa weeyaan sawiraan baa la isku keenay jiray waraaqo la isku soo qori jiray xiriirka xataa labada qof ee xiriirayaan baa aad u yaraa dadana waxa badnaanay marka xiisay xataa labada qof ee isjecel xiriirka dhabta ka dhaxeeya labada dhanba ka dhaxeeyo intay is arkayaan iyo sidoo u xiriirayaan waxaas markay adkaadii caqabadaasi xiisa gaar ah jacaylku sameyn jireen waxa laga yaabaa in marmarsiyo badan aad samaysato si aad qofka jacayl u kulanto laakiin wixii markay sahlanaadeen حتى لو بدي استعمل مركز اسكو باتانه مر فيديو كول اسكو سو عaan مر واتساب اسكو سو عaan مر كولكي caadiga wixii waxa moodaa inay xiisi ka yartay markaas waxaan taageersanay jacaylkii bariga hore sheekooyinkii bariga hore dhici jiray waxa ahayn sheeko aad u sheekooyin aad u xiiso badan ma garanaysaa murti iyo xikmad leh laakiin kuwan iminku waxa weeyaan waa xikmadii waa ka dhamaatan la karna on kaaga mahad celinay saaxiib historigaaga يا شكلها ضوء أدبن وفرحتنا ساحب إن ترى كيف صوب مقطع بحالتين إن شاء الله مرة كلام بدن إن أيون إن شاء الله كل مدون ميت كستويدك هيدا كم مدنا أو إن تعال لدي سيوا حيتشران هيلا صح حلو دكتور هو صور فكرة يعني شوكوينك مقرن ساي تعال هذا يو مقرن ساي استريد دينا صو كلمي وصود ويننا إن شاء الله بدنا سودا كرتان إن شاء الله أدبنا ساحب وما سنتاي ما شاء الله إنه يوتيوب كقصة مقدنا وحويان شرف وين بيتهاي يينا استري مركي كواد وحويان ومركي كواد إن أنت يوتيوب كصفر يستعمل وحوي استري كشكاين أيوه وعنا نسيبه هن كصة مقدو حويان مولد سام أدبنا سنت ساحب إن شاء الله حويان أدبنا سنت